الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan cawada in sha allahu tacaala aan ku bedelanaynaa casharkii noo socda kitaab tawxiid duruus aan uga hadli doono in sha allahu tacaala xajka iyo sida loo gudanayo maadaama lagu jiro waqti xaj ah oo dadka qaar ay rabaan inay soo xajiyaan waxaa laga maarmaan ah in qofka raba inuu xajiyo uu u guto waajibkaasi sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay mana u gudan karo ilaa inuu cilmi u yeesho marka in sha allahu tacaala cashar oo kooban oo noo socon doono dhowr habeen oo aan ku bedeli doono casharkii kitaabu tawxiidka noo socday ayaan bilaabanaynaa cawada in sha allahu tacaala awalan waa in dhammaan muslimiinta ay ogaadaan xajku waa waajib waa fardi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku fardi yeelay qof walboo muslim ah oo xur ah oo caqli leh oo haddana awoodi kara cumrigiisii hal mar ayaa waajib waxaa ku ah inuu guto haddii uusan gudanin waa lagula xisaabtami doonaa sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo laysku fardi yeelay xajkana sidoo kale waa fard allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila allah subxaanahu wa tacaala dadka wuxuu ku fardi yeelay xaj isaga loo xajinayo man istataaca ilayhi sabiila qofkii awooda idan qofkii istitaaca laga helo oo muslim ah oo caaqil ah majnuun aan ahayn qofkaasi haddii uu awoodo waxaa waajib ku ah inuu xajiyo nabigana sala allahu calayhi waaalihi wasalama waxaa laga wariyay xadiis saxiixa imaam muslim uu soo saaray waa xadiidka abu hureyra uu warinayo wuxuu yidhi ayuha nnaas dadow qad farada allahu calaykum alxaja faxujuu ilaahay wuxuu idinku fardi yeelay xajka ee xajiya xajkaasi marka oo faradka ah oo waajibka ah sidee loo gudanayaa awalan qofka markii uu rabo inuu xajiyo iyo inuu cumraysto waxaa laga rabaa inuu ixraamto ixraamkaasi waa xirashada cumrada la xirto ama xajka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiday amaakin ama meelo qofka laga rabo inuu xajka ama cumrada uu ka xirto amaakintaasi marka waxaa la yidhaahdaa miiqaat culimadoo dhanna waxay isku raaceen qofka xajinaya ama cumraysanaya uma banaano miiqaadka inuu dhaafo sida imaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa majmuuca uu kusoo guuriyey ibnu qudaamana wuxuu yihi raximahullah laa naclamu fiihi khilaafan khilaaf inuu ka jiro maba ogin buu yihi arrintaasi masaladaasi in qofka uu ka ixraamanayo miiqaadka arrintaasi inay waajib tahay khilaaf kama taagna buu yihi lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyay xadiid saxiix ah muttafaq ah bukhaari iyo muslim ay soo saareen waa xadiidka cabdullahi bnu cabaas uu warinayo wuxuu yidhi waqata liahli lmadiinati da lxulayfa nabiga calayhi salaatu wasalaam reer madiina wuxuu miiqaat uga dhigay makaanka ay ka ixraamanayaan meesha la yihahdo da lxulayfa oo hadda loo yaqaano aabaar cali waliahli shaami aljuxfa dadka shaam ka imaanayo dhulkaasi shaam oo dhan dadka ka imaanayo inay ka ixraamtaan oo ay ka xirtaan juxfa meesha la yidhaahdo waa meesha hadda loo yaqaano raabiq waliahli najdin qarna almanaasil ahli najd waa dadka riyaad degan iyo wixii ka dambeeya khaliijkan
waxay ka ixraamanayaan qarna almanaasil, waa meesha sayl kabiir la yidhaahdo. waliahli lyaman yalamlam, ahli yaman, yaman iyo wixii ka shisheeyay dadka ka imaanayana waxaa loo sameeyay meesha la yidhaahdo yalamlam, waa muxaafadada layth la yidhaahdo ee sacuudiga tabac u ah. markaa wuxuu yihi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam huna lahuna waliman ataa calayhina min gayrihina, meeshaasi dadka degan lahuna miiqaadyadaasay leeyihiin, waliman ataa calayhina iyo dadka banaanyahaasi ka imaanaya oo meesha soo maraya intaba halkaasaa laga rabaa inay ka ixraamtaan. miman araada alxaja waalcumrata, qofkii xaj iyo cumro rabo. waman kaana duuna dalika, qofkii kasoo sokeeya marka, qofkii miiqaadyadaasi kasoo sokeeyo oo dhinaca xaramka maka kusoo dhow, qofkaasi fa min xayثu ansha'a, rasuulka wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam meesha uu ka baxayo ayuu ka ixraamanayaa. macnaha miiqaadyadaas oo dhan qofka uu kasoo sokeeya. tusaale dhanka wuxuu jiraa yeman, laakiin yalamlam sokadeedu degan yahay qofka, laguma qasbayo inuu baxo yalamlam uu tago, inamaa meesha uu degan yahay ayuu ka ixraamanayaa, ayuu aadayaa. xataa ahlu makata min makata, nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam reer maka xitaa makay ka ixraamanayaan. xadiidkaas waa xadiid muttafaq ah. idan qofkii raba inuu cumraysto ama inuu xajiyo waxaa qasab ku ah miiqaadkaasi inuu ka xirto. miiqaadkaasi marka qofka banaanyahaasi ka imaanayo waa inuu ixraamto. haddii diyaarad uu ku imaanayo laba arrinba isagay jirtaa. haddii uu doono inuu isdiyaariyo markii diyaaradda, inta badan diyaaradaha way sheegaan waxaan ku aadanahay miiqaadka, markay yidhaahdaan ayuu niyeysanayaa. haddii uu dhulka ku socdona waa inuu meeshaasi ka ixraamtaa, ma soo gudbi karo meeshaas. cabdullaahi ibnu jumhuurka culimada oo ay ka mid yihiin 4 madhabood waxay isku raaceen qofka haddii miiqaadka uu dhaafo isagoo jaahilka ah ama isagoo hilmaamsan ayuu dhaafay, qofkaasi muxuu sameynayaa? kulligooda waxay isku waafaqeen jumhuurka 4 madhabooda ka mid ah, madhabka xanafiyada, maalikiyada, shaaficiyada iyo xanaabisha, dhammaantooda waxay yidhaahdeen qofkaasi waa inuu meesha u noqdaa oo kasoo ixraamto. cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey wuxuu yihi idaa jaawaza alwaqt, meesha miiqaadka loogu sameeyo qofka haddii uu gudbo uusan ixraamanin xataa dakhala maka, ilaa maka uu soo galay, rajaca ila alwaqti, meeshii miiqaadka inuu noqonayaa, halkaasuu kasoo ixraamanaya buu yihi. fain khashiya, haddii uu ka baqo oo waqtiga xajka in la dhaafo haddii uu ka baqo, meeshiisuu ka ixraamanaya, laakiin dhiig ayuu daadinayaa. waa haddii qofka isagoo jaahil ah waxba ogeyn uu soo gudbo maalintii xajka ama maalinta carafada la aadi lahay oo kale kusoo beegmo, kadib loo sheego la yihahdo miiqaadka inaan kasoo ixraamataa la rabay, qofkaas meeshiisuu ka ixraamanaya si aan xajka uga tegin, laakiin dhiigaa laga rabaa buu yihi. idan ixraamka qofka markii uu rabo inuu cumro ama xaj xirto, waxaan halkan ku qaadanay oon ku fahanay in laga rabo inuu miiqaadka kasoo xirto. maxaa la rabaa marka qofka markuu ixraamanayo? waxaa sunno ah inuu qofka qubaysto, xataa haweeneyda dhiigga xaydka ama dhiigga umusha haddii uu u joogo way qubaysanaysaa. waxaana laga rabaa qofkaasi inuu aadaab alikhtisaal ula yimaado, oo ah waxyaabaha wasaqda inuu iska zuuliyo, sida cidiyaha inuu iska jaro, raggana shaarbaha inay iska gaabiyaan, in kilkisha tinta la iska tifo, caanaha in la xiiro waa tinta hoose, intaasi iyo inuu qubaysto, arrimahaas oo dhan waa sunno. waa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii uu la yimid markii uu ixraamanayay.
zayd ibnu thaabit radia allahu canhu waxaa laga wariyey xadiid imaamu tirmidi iyo ibnu khusayma ay soo saareen sheekh albanina uu saxiixiyey. wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ihlaalanayay iqtasala wuu qubaystay. idan qofka inuu qubaysto ayaa sunno ah. jumhuurka culamadana way isku raaceen, micnaha qofka haddii uu qubayska ka tago uu weysaysto kaliya way u ansaxaysaa, laakiin had iyo jeer sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la fuliyo ayaa wanaagsan. caaisha radia allahu canha waxay tiri asmaa bintu cumays ayaa umushay, waxay dhashay moxamed ibni abi bakr. abubakr sidiiq ayay wiil u dhashay moxamed asmaa. markaa fa amara rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam, caaisha waxay tiri rasuulku wuxuu amray abubakar wuxuu amray an ya'murahaa inuu amro an taqtasila wa tuhilla, inay qubaysato oo ay xerato xajka. waa xadiis saxiixa imaam muslim soo saaray. idan haweenka xataa dhiigga xaydka haddii uu joogo way qubaysanayaan wayna xiranayaan sida dadka oo kale. idan rag iyo dumarba inay qubaystaan ayaa sunno ah oo aadaab aliqtisaal ay la yimaadaan sida aan hore usoo sheegnay. taas waa midda koowaad. midda labaad, ragga waxaa sunno ah inta ayna xiranin marka ay qubaystaan inay catar iyo marsadaan oo ay iscarfiyaan, lianna dhowr maalmood xajkaa la gudanayaa. lidaalika caaisha radia allahu canha waxay tiri kuntu utayibu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan tiib u marin jiray, waan carfin jiray liixraamihi xiina yuxrimu, markii uu xiranayo intuusan xiranin ayaan u marin jiray, waan carfin jiray bay tiri. waa xadiid muttafaq ah. idan aadaabtu waxaa ka mid a sunnooyinka ka mid ah qofka inuu cathar iyo wax marsado. ama masalada saddexaad waa masalo khuseeya ragga. ragga waxaa laga rabaa inay xirtaan laba maro, waxaana sunno ah maryo cadcad inay ahaadaan. haddii maro kale ay xirtaan wax ba'si ma lah, laakiin maryo cadcad inay xirtaan taasaa afdal ah. amaa haweenka iyaga dharkooda caadiga ah ayay ku gudanayaan cumrada iyo xajkaba, keliya waxaa ka mamnuuc ah inay weji dabool ay xirtaan niqaab. sidoo kale colfis inay gashtaan gacmaha wax la gashto taas waa ka mamnuuc. raggana waxaa ka mamnuuc ah dhar la tolay oo makhiid ah inay xirtaan, waxay xiranayaan laba maro oo cadcad. cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi liyuxrima axadukum fii izaarin wa ridaa-in, axadkiina ha ku ixraamto ixraamka ha ku xirto izaar iyo ridaa. izaar waxaa la yihahdaa marada hoos laga xirto, ridaa-na waa marada kor laga qaato. labadaasi maro ha ku ixraamta buu yihi. wanaclayni iyo laba dacas, fain lam yajid naclayni, haddii laba dacas uu waayo falyalbis khufayni, laba khuf ha xirto, waliyaqtachumaa ha gooyo khufeynka ilaa qoobaha ha gooyo, xataa yakuuna asfala min alcaqabayn, ilaa ay noqdaan qoobaha meel ka hooseeya ilaa uu gaarsiiyo. xadiidkaasi waxaa soo saaray imaamu axmed kitaabkiisa musnadka, sheekh albanina wuu saxiixiyey. idan xadiidkaasi waxaa ku cad ragga inay ku ixraamanayaan laba maro, maro hoos laga xirto iyo maro kor laga qaato. dumarkana dharkooda caadiga ah. cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma waxaa kaloo laga wariyey wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama, rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almuxrimatu laa tantaqibu, haweeneyda oo muxrimada ah oo cumro ama xaj xiranaysa niqaab ma xiranaysa buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. laa tantaqib, niqaab ma xiranayso, waa ka mamnuuc. meesha waxaa ku cad haweenka inta kale niqaab bay xiran jireen. haddii wejigooda u feydnaan lahaa lamaba amreenba, lagama reebeen.
marka wuxuu yidhi laa tantaqibu almar'atu almuxrima haweeneyda muxrimadda ah niqaab ma qaadanayso walaa talbisu lqufaazayn kolfiska gacmaha waxa la gashtana sidoo kale ma xiranaysa buu yidhi labadaasuu ka xarimay rasuulka calayhi salaatu wasalaam amaa gayra dalik dharkooda caadiga ah ayay ku cumraysanayaan qasab ma aha maryo cadcad inay xirtaan dumar badan waxaa arkaysaa isku kalifayo maro cadcad qaadanayo xiranayo bal waxaa afdal ah dharkeeda xijaabkeedii oo aan indhaha soo jiidanaynin inay qaadato xadiidkaasi marka cabdullahi ibni cumar uu warinayo waxaa soo saaray asxaabu sunan waxaan ka ahayn ibnu maaja abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa soo saaray iyo imaamu axmed taasna waa qodobka kale oo ah dharka la xiranayo amaa qodobka ugu dambeeya waxaa la rabaa qofka markii uu ixraamanayo wax salaad ah oo ku soo arooray ma jiro salaad sunno ah la dukanayo inamaa waxaa afdal ah ay yidhaahdeen culimada qofka markii uu salaada faradka dukado inuu ixraamto ama haddii uu masjidka galo inuu taxiyatulmasjidka markii uu dukado uu ixraamto taasaa afdal ah haddii salaad farad aan la joogin masjidna uusan galaynin inuu qubaysto isdiyaariyo ayuu ixraaman karaa daruuri ma aha inuu salaad dukado cumar ibn khataab waxaa laga wariyey radia allahu canhu xadiid saxiix ah uu nebiga ka warinayo waa xadiid imaamu albukhaari uu soo saaray nebiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alleylata ataanii aatin min rabbii cawada waxaa ilaahay agtiisa iga yimid malag ilaahay soo diray markaasaa waxaa laygu yidhi an salli fi hada alwaadi almubaarak waadigaani barakaysan ku duko waqul waxaad tidhaahdaa cumratun fii xajatin cumro oo xaj aan ku daray sidaa dhex baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa markii uu ixraamanayo ibnulqayim raximahullah wuxuu yidhi nebiga lagama soo guurinin salaad khaas ah oo ixraamka loogu talagalay in la dukado dadka qaarkoodii waxay caado ka dhigteen 2 rakac inay dukadaan ayadoo waqti salaada la joogin ama masjid ayna ku jirin ama inay masjidka u galaan liajli 2daas rakaca inay dukadaan taasna ma sugnaanin laakiin waxay yidhahdeen culimmadu waxaa afdala qofka markii salaada faradka uu dukado inuu ixraamto intaasi marka waa aadaabta laga rabo qofka ixraamanayo markii uu ixraamanayo muxuu leeyahay muxuu ku dhawaaqayaa in sha allahu tacaala casharka soo socdaan qaadan doonaa hada wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين